maskaxdu waxay diyaar u tahay inay si feejigan u gudato hawlaheeda baaxadda weyn sida hadalka, xusuusta iyo inuu qofka u fakaro si macquul ah. xaaladaha ka hor yimaadana uu uga gudbo si hufan iyadoo ay hurdadu kaalin mug leh ay ka qaadato kobcinta maskaxda. inkastoo hurdada ay fursad u siiso bini'aadamka inuu ka nasto howl maalmeedka dhibta badan ee uu aadanuhu ku kasbanayo noloshiisa, waxaana dhab ah haddii qofku seexdo muddo 3 saacadood ah inuu jirkiisu kaydsanayo tamar qiyaastii u dhiganta 50 ilaa 60 kilokalori. laakiin haddii uu qofku soo jeedo muddo 17 saacadood oo xiriir ah, waxaa la sheegayaa inuu la mid yahay sida qof cabay daraagiska sida qamriga oo kale, oo xaddiga alkoholka ku jiraahi ay tahay 0.5%. xaddigaas oo ah kan ugu badan oo ruuxa ku nool dalalka Yurub loogu ogol yahay marka uu isticmaalo inuu gaari ku kaxayn karo. waxaana la isku raacay inay hurdadu lagama maarmaan u tahay qof kasta oo bini'aadam ah marka laga hadlayo dhanka caafimaadka maskaxda iyo jirka intaba. laakiin marka uu qofku seexdo, waxaa suuragal noqonaya inuu si firfircoon u guto howl maalmeedkiisa iyadoo qofka jir ahaan iyo maskax ahaanba intuba uu diyaar u yahay gudashada waajibaadkiisa shaqo. haddii ay qofka ku dhacdo hurdala'aan joogto ah, waxaa gebi ahaanba howlgab noqonaya qaybo ka mid ah maskaxda kuwa oo kontaroola hadalka, xusuusta iyo qorshaynta. waxaana dhici karaysa inay isku dhex yaacaan waxqabadka maskaxda, qofkana uu la yimaado caro fara badan, ilowshidhawe iyo feejignaantiisa oo si weyn hoos ugu dhacda. laakiin bini'aadamka ayaa la og yahay marka cimrigiisa loo qaybiyo 3 meelood meel ka mid ah inuu ku qaato hurdo. waxaa la og yahay in shakhsiyaad caan ka ahaa dunida qaarkoodna ay weli nool yihiin waxay fursad u heli jireen in ay seexdaan 24 saacba 4 saac oo ka mid ah. laakiin ninka lagu magacaabo Thomas Allison ayaa qaba kuna doodaya fikir ah inay waqti lumis tahayba in gebi ahaanba ay dadku seexdaan, balse dadka hurdada ay ku yar tahay ayaa had iyo jeer dhibaato kala kulma inay jawaabo degdeg ah ay ka bixiyaan xaaladaha adag ee soo wajaha. hurdala'aanta joogtada ku noqota qofka ayaa sabab u ah halisyo badan oo caalamka soo food saaray, sida burburkii ka dhacay Challenger ee sahmintii hawada sare oo dhacay sanadihii 80-meeyadii. hurdala'aanta ayaa waxay qofka gaarsiisaa isbeddel ku dhaca shucuurta qofka iyo waxyeelo dhinaca caafimaadka ah sida xaaladda loo yaqaano sleep apnea oo ah xaalad soo noqnoqota oo uu qofku hakinayo neefsashada xilliga uu hurdada ku jiro. xaaladaasina waxaa lala xiriiriyaa cadaadiska dhiigga qofka oo ah mid aad u sarreeya iyo xaalado kale oo uu stressku ka mid yahay. cilmibaarista ayaa sidoo kale lagu ogaaday xarumo dhowr ah marka isbarbardhig lagu sameeyey sida ay u shaqeeyaan maskaxda dumarka iyo tan ragga. haddaba waxaa muuqata oo waadax ah in haba yaraatee aanay jirin wax shaki gelin kara kala duwanaanshiyaha dhinacyada waxqabadka iyo qaab dhismeedka u dhexeeya maskaxda labka iyo tan dheddigga. balse haatan ma jiraan wax caddaymo ah oo loo hayo in kala duwanaanshiyaha maskaxda ee labada jinsi ay keeni karto inay dumarku kaga hooseeyaan ragga marka laga hadlayo barashada laamaha kala duwan ee cilmiga sida fiisigiska, kemistriga, xisaabta iyo dhinaca injineeriyadda iyo kuwo kale. saynis yaqaanada ayaa intaasi ku daray inay dumarku ka maskax yar yihiin ragga marka si guud loo eego qaab dhismeedka maskaxda, taa oo dad badani ay ku macneeyeen inay dumarku garaad ahaan ka hooseeyaan ragga. baarayaasha isu howlay arrimahani ayaa sheegay in labada maskaxood ay ku kala duwan yihiin 4 qaab dhismeed ee maskaxda loo kala qaado marka laga hadlayo qaab dhismeedyada maskaxda bini'aadamka. kala duwanaanshiyaha maskaxda ee labada jinsi ayaa 5tii sano ee ugu dambeysay si weyn loo diiwaan geliyey. taasina waxay lagama maarmaan ka dhigaysaa in dhinaca jinsiga qofka loo eego marka ay dhaqaatiirtu doonayaan inay bukaanada ka daweeyaan cudurrada qaarkood ee ku dhaca maskaxda sida Alzheimerska iyo kuwa kale oo la midka ah. dhakhtar ku xeel dheer cilmiga neerfaha oo isaguna cilmibaaris ku sameeyey horaantii 60-meeyadii ayaa sheegay in marka laga soo tago kala duwanaanshiyaha dhinaca qaab dhismeedka maskaxda ragga iyo tan dumarka ay si weyn ugu kala duwan yihiin waxqabadka qaybo ka mid ah maskaxda kuwa oo ku shaqo leh dabeecadda qofka. sidoo kale waxaa kala duwanaanshiyahaasi door weyn ku leh hormoonada u kala gaarka ah ragga iyo dumarka, kuwa oo qaabeeya qaabka ay u kala fakeraan ragga iyo haweenka.
cilmibaarayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay labada jinsi dhanka fakarka ay ku kala duwan yihiin marka lagu guda jiro carruurnimada hore. cilmibaarayaasha ayaa sheegay in wiilasha yaryar ay jecel yihiin in ay ku ciyaaraan banooniga iyo baabuurta yaryar ee ka samaysan cinjirka, halka gabdhaha yaryarna ay iyagu aad u jecel yihiin tooyiska gabdhaha ah ama boombilaha caagga balaastikada ah ee u samaysan sida qofka dumarka oo kale. dhanka kale, cilmibaarayaasha ayaa warbixintooda ku sheegay in xayawaanada dheddigga ah iyo kuwa labka ay iyaguna ku kala duwan yihiin dhinacyo badan, waxaana arrimahaasi saamayn ku leh hormoonnada labka iyo kuwa dheddigga oo ay kala leeyihiin labada jinsi. hormoonnada ku badan haweenka ama dumarka ayaa ah kuwo qaabeeya jilicsanaanta jirka dumarka, soo bixidda horaadada iyo codka dabacsan ee haweenka, halka hormoonnada ragga u gaarka ahna ay door weyn ka ciyaaraan qaabaynta codka waaweyn ee ragga. adayga jirka iyo qaybaha arrimahaasi shaqada ku leh waxaa lagu magacaabaa hypothalamus, oo ah mid koontaroola qanjiro dhowr ah oo soo saara hormoonnada kala duwan ee ragga iyo dumarku. muddooyinkan dambe waxaa sii kordhayey dadka sida aadka ah u isticmaala cabista shiishadda, inkasta oo ay dadka adeegsadaahi ay u arkaan inay tahay nooc ka mid ah ilbaxnimada. taasina waxaa lamaan ku ah halista dhanka caafimaadka iyo waxyeelada ay sababto. dhallinyarada ku nool waddamada caalamka ayaa ah kuwo xilligan si aad ah u isticmaala cabista badeecadda, iyadoo ay haatan sii kordhayaan haweenka da'da yar oo ay soo jiidanayso balwaddaasi. dad badan oo dhallinyaro ah oo ku nool caalamka ayaa ku jahwareersan waxyeelada shiishadda dhuuqisteeda ay xambaarsan tahay. dhalintaasi ayaa ah kuwo inta badan iska dhaadhiciyey sheeko mala awaal ah oo marqaan rimis ah, ayna aaminsan yihiin in shiishadda ay ka halis yar tahay waxyeelada sigaarka. dhallinyaradaasi ayaa waxay inta badan ku andacoodaan in biyaha soo dhex maraya qiiqa shiishadda marka la nuugo ay nadiifiyaan nikotiinka ay xambaarsan tahay tacmiirta. laakiin waxaa arrimahaasi mala awaalka ah gaashaanka ku dhuftay dhakhaatiirta caafimaadka. waxa ayna sheegeen in qofka maalintii caba shiishadda ay u dhiganto isagoo cabbay 100 xabbo oo sigaar ah maalintii. daraasaddan ayaa lagu xaqiijiyey in biyaha ku jira shiishadda la dhuuqo ay la wax yeelo eg tahay sigaarka, islamarkaana ay biyahaasi wataan carbon monoxide. tubooyinka uu soo marayo qiiqa shiishadda la tilmaamay in laga qaadi karo cudurro uu ka mid yahay kansarka. cilmibaaro u dhashay waddanka Maraykanka una qaabilsan dabagalka cudurka kansarka ayaa isagu sheegay in da'yarta faraha badan ay ka qabaan fikir qaldan waxyeelada shiishadda, ayna sheegaan inay ka waxyeelo yar tahay sigaarka. taasina waxa uu ku sheegay cilmibaarahaasi sheeko iska dhaadhicis ah. sidoo kale, cilmibaarayaal ka tirsan 8 jaamacadood oo ku yaala waddanka Maraykanka ayaa iyagu tilmaamay in 40.3% dhallinyarada, gaar ahaan ardayda, 3 meelood meel ay dhuuqaan shiishadda iyagoo daraagis kale ku darsanaya, halka 46.6% ay ardaydaasi yihiin kuwo sigaar un cabba oo keliya. daraasaddan ayaa noqotay mid lagu ogaaday in 25% arday ay xilligan yihiin kuwa sigaar dhuuqa, halka 17.4% ay yihiin ardayda kuwo si aad ah u isticmaala inay cabbaan shiishadda. tiradaasi oo la sheegay inay u badan yihiin ragga dhallinyarada ah, halka dumarka dhallinyarada ahayna ay isticmaalaan shiishadda ay gaarayaan 14.3%, kuwa oo dhammaantood ku nool dalka Maraykanka. warbixintan oo lagu daabacay websayte-ka ka faallooda arrimaha caafimaadka ee lagu magacaabo Life Science, bogaggiisa ayaa lagu daabacay in baararka iyo maqaayadaha lagu cabo shiishadda ay yihiin kuwo aan si wanaagsan loo nadiifin, waxaana dhici karta in tubooyinka lagu dhuuqo shiishadda ay xambaarsan yihiin cudurro infekshan iyo bakteeriya leh, taa oo ka dhalan karta isla nuugidda la isla nuugo tubada shiishadda, maadaama dadka qaarkood laga yaabo in ay qabaan cudurrada ku dhaca afka iyo kuwo kale. taasina ay sababi karto in la isqaadsiiyo cudurradaasi oo qaarkood noqon kara kuwo halis ah. dadka sida aadka ah u qabatimay isticmaalka aaladda internetka, ka oo ah mid ay ku kulmaan bulshada, kuwa oo xog ururin laga qaaday ayaa muujisay inay dareemeen inay guuldarraysteen noloshoodana ay dayaceen. cilmibaaristan ayaa tilmaantay in dadka baraha sida aadka ah u isticmaala ay aaminaan
inay guuldarraysteen marka loo eego kuwa ka fogaada waqti ku luminta facebooka iyo aaladaha kale ee internetka. dadka ku nool Britain 30% ka mid ah waxay aaminsan yihiin in aanay gudan waajibaadkoodii nololeed, halka 56% baraha bulshada ku xiriirto ee internetka ay isticmaalaan sida daraasadda lagu sheegay. cilmi-baarista ayaa lagu sheegay in ragga dhalinyarada ah ay yihiin kuwa ugu badan ee dareemay inay guuldarraysteen marka loo eego haweenka. mid ka mid ah 3 nin ee da'doodu ay u dhaxayso 25 ilaa 34 sano jir, kuwa oo rajaynaya in noloshooda iyo qofka ay yihiin ay baraha bulshada ku sharaxaan, kuwa oo inta badan ilaawa nolosha caadiga ah iyo inay horumar sameeyeen. daraasadda ayaa ahayd mid ay samaysay shirkadda lagu magacaabo Future Foundation. daraasaddan ayaa laga qaaday dad ay tiradoodu gaarayso 5,000 oo ruux oo reer England ah, iyagoo natiijadii ka soo baxday daraasaddan noqotay in dhalinyarada waqtiga noloshooda ay dib u ridaan, iyaguna ay aaminaan inay nolosha ku fashilmeen. cilmi-baaristu waxay tilmaamaysaa in qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay ka walwalaan qaabka ay u egyihiin, halka kuwa kalena ay iska dhaadhiciyaan inay guuldarraysteen oo aan faraxsanayn oo uu mashquul badan haysto. dadka inta badan ku xiriira social mediaha ama baraha bulshada waxay abuureen dhaqan ah inay isbarbar dhigaan inay guuldarraysteen dib u dhac ay sameeyeen oo ay nolosha ka hareen. sidaa waxaa yidhi William Seymour oo ka tirsan shirkadda Future Foundation oo cilmi-baaristan samaysay. shirkadda waxay ka digtay dhibaatooyinka soo wajahay jiilasha waqtigan aaladaha internetka ay sii badanayaan, taa oo noloshoodana ku keeni karta dib u dhac saameeya inay ku dhex dhacaan qaladaad badan oo saameyn weyn ku reebi kara nafsadooda. inta badan waxay arrintani si gaar ah u saameynaysaa, sida lagu tilmaamay cilmi-baarista, ubadka ku kora isticmaalka social mediaha ama baraha bulshada marka loo eego dadka waaweyn ee xilligan isticmaala. xog ururinta ayaa muujinaysa in 3 meel 2 ka mid ah 63% dadka da'doodu u dhaxayso 17 ilaa 33 sano jirka ay yihiin kuwa dareema dib u dhac nololeed, marka la barbar dhigo 7% oo da'doodu ay u dhaxayso 55 sano jir ilaa 78 jir, kuwa oo ku nool England.